وقصة رنتي جوانب بدن إن لقى أغمضا لكن waxaan isku dayaa bal hal waji oo wajiyadeeda kamid ah inaan ka eegno hal waji oo wajiyadeeda kamid ah waxaan ka eegaynaa halka Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin Ilaahay wuxuu quraanka ku leeyahay subhanahu wa ta'ala laqad kana fi yusufa اللام الموطأ للقسم يقضى حرف التعقيق انت الإسراعيي أي إلهي وحلي لقد كان في يوسف الله قدرت وحا حقيقة النبي يوسف إيا ولا الذي إن إيدين كسوغين با إلهي لي آيات للسائلين آيضه عبر وحوح لقوقا تربضا أي كسوغين با إلهي لي سبحانه وتعالى نائب يوسف قصدي سوحي كعام بحضي وحاهانين عفيف اللسان عفيف القلب عفيف الجوارح يعني وقصة عفك عام بحضي إلهي مركا وحين لي نبي يوسف وحايد كسوغان إيا ولا الذي آيضا أيا كسوغان با إلهي قصة إلهي وحكا ورمى يا مركا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يوسف يا ولالكي أيا آبهين إنك تعليهي إنغنا كوح عصبة كوح إنغا إن أبانا لفي ضلال مبين زعمي قوداس هدوت شربي إليين آبهين مسألة دا سباد إني ما عدبك قسوغين هاي شيئين إن يوسف إيوه ككير أي ولا لا ينا بهذا دجالي وجهرين أبها وحلا فرع عرورتي سينو عدالة سمايه عدالة دينو سمايه لكن قلبي إلهي بها أنت سبحانه وتعالى أديو عدالة سماينيه وعرورتي أدي وديين بان قلبي قوسيني باتك لا شعلان كرتا ذنبنا ما شعلان تو مسألة فطرية أسباب بانا جعيلك كيني كرتا من غير بادية أبا وحا لقو يدhi carruurtaada kaadu jeceshay kolba kii u yar buu yidhi ka ugu yarun baan markaa uun ko dhooldhooliyaa ilaaliyaa kaasuun baan koolkooliyaa waad kala jeclaan kartaa waxaad ku kala jeclaan kartaa say kugu kala nugulyiin iyagoo 5-6 oo halkan fadhiya markaad tidhaahdo waryaadha hebelow markaad tidhaahdo mid baa jira haddaad afkaba kala qaado soo boodaya nafsiyan kuulama sinna kuwan aan kuu dhegtaagaynin macnaheedu maaha laakiin dee inaad aanad u cadaalad samaynaynin macnaheedu maaha inaad u cadaalad samaynaynin waad cadaalad samaynaysaa xuquuqda kugu leeyihin waad wada siinaysaa laakiin insaanka haddanana fitriyan nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh dadka yaad u jeceshaa la yidhi wuxuu yidhi caasha maba qarin nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh dadka yaad u jeceshay markii lagu yidhi caashuu yidhi taa macnaheedu maaha inaanu nabigu cadaalad samayn nabigu waa cadaalad samaynaya cadaaladiisu xad bay gaadhsiisnayd isagoo buka aanu meel jiifina u lahaa caawa xaggaanahay iqaadoo inta la qaada la geynayay gurigii kolba tuu habeenkaa lahaa waa qof buka oo jiifa laakiin aan rabin in guri qura jiifo oo lagu hayee raba inta la qaado kolba habeenba halkii uu lahaa in la geeyo hada hiya alcadaala waa cadaalad samaynayay fi lmabiit wa fi kulli shay waa cadaalad samaynayay ama mas'alat alxub iyo qofku cidda uu jecel yahay waa mas'ala waxyaabo badan oo kale ay xukumaan sadraadeed buu nabigu markii la yidhi dadkii aad u jeceshay caasho buu yidhi waayo waxaan u jeednaa ragga baa la yidhi aabaheed buu yidhi nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh abi bakar ma qarinin idan qofku inuu wax jeclaadaa waa mas'ala inuu cadaalad sameeyana waa mas'alo kale yuusuf iyo walaalkii waa yaryaraayeen qur'aanku ma sheegin aabahood inuu kuwa kale ka jeclaa allahuma ilaa calaa lisaani inamada mooyaane inamadani waxay ku andacoonayaan yuusuf iyo walaalkii waana laga jecel yihi waxay kaloo leeyihiin annagaaba cusba annagaa kooxa
annagaa xoog iyo cudud ee maxaa labada midha yaryar laga jeclaanaya laakiin qalbiga qofka bini aadamka ah haddii uu galo daqiinada iyo qilga iyo baqdaaga iyo yacni xumu hadduu galo wuu koraa nimankani aabbahood sida iyagu sheegteen bay ka cadhoodeen inuu yuusuf iyo waxay qaateen fikrad aad u fog oo ah uqtuluu yuusufa aw itraxuuhu arda yuusuf dila ama dhul fog ku tuura su-aasha isweydiinta le waxa weeye oo yuusuf jariimadu galay waa maxay qofku soo inuu dembi gala ma ahayn marka ciqaabsiga lagu fulinayo calal aqal aabbahaa wax jeclaaday haddaabay jariimo noqoto laakiin yuusuf iyo walaalkii waxba may samaynin waxay culammadu yidhahdaan meeshan waxaa ku jira min baabi alxasd waxay yidhahdaan culammadu qofku marka hore waxbuu ka cadhoodaa cadhadaas qofku haddaanu xalu helin way ku kacdaa bay yidhahdaan oo nooc min cadaawa bay isu beddeshaa waa ka sii kortaa bay yidhahdeen culammadii oo nooc min alxiqd cuqad nafsiyo xaqdiya bay keentaa oo qofka shamaata aad ku samayso iyo inay dhabi ku dhacdo aad kuba faraxdo way ka sii kortaa bay yidhahdeen oo xaasidnimay gaadhaa xaasidnimadu waxay yidhahdeen waa muntahaaga waa halka u dambaysa bay culammadu yidhahdaan waa qofkoo jeclaysta qofkan kale in nimcada alla ka qaado isagana siiyo isagu wuu jecelaya waxaan inuu helo nimankani waxay raadinayaan aabbahood kalgacalkooda inay helaan waxay kaloo rabaan yuusufna inay icdaamiyaan oo la waayo aan la jeclaanin nimanka kan xaasidnimadatan ama colaadatan ayaa qalbiga ka gashay xaasidnimadu waa masale aan fududayn qofka markay degto waa masaladii keentay ilmo nebi aadam inay isdilaan walaalkii uun gabadhaa ha guursadadii intuu ka xaasiday laaqtulannak ilaahay markuu kan ka aqbalay ducadii inuu abaalmar uga dhigo laaqtulannak war anigu maxaa sameeye aad ugu dilaysaa waa ku dilayaa buu leeyahy isagoo aan jariimo gelin